1960 juun halkan lagu dabaaldegay wafdi baa xamar ka yimid aadan cabdibitaatiye ahaayeen ama niman xildhibaano baarlamaanka ka tirsan aadan cabdulla cismaan baa watay habeenkii halkan ku xafladeen 2002 dararamle Axmed Cali Haaruun oo DG ka ah wasaaradii dhaqanka iyo dalxiiska ayaan ka wareystay wuxuu ii sheegay subaxnimadii 27kii in la qaaday iyagoo shana oo la geeyay xamar si ay kooda Juulaay ugu heesaan waa Cabdilaahi Maxamed Maxamuud Xirsi Cabdilaahi Qarshe Maxamed Yuusuf Cabdi Maxamed Axmed Kuluc Axmed Cali Haaruun dararamle iyo nin Xasan Gelin loo oran jiray gaari Land Rover halka ka haysteen xamar bay tageen koodii Juulaay cadaysimay ahayd wixii hees lagu muuneeyay muquuno looga dhigay halkana laga tago kooxdaas ayaa qaaday heesaha la qaadayay magowda candadii golaha marisiyo balkaan canabe calankan walaalayo waa kii aynu rabnay iyo waxaas la qaadayay hees Maxamed Yuusuf Cabdi qaadayay ayaa ka hadlaysay koonfurta iyo xaaladii lagu jiray dharaartii walaalkay loo dhisay hortii dhashay soo soo dhicin hees kale oo la sheegi karaa ma jirto maanse haddii la soo qaado maalmaha Muqdisho waxa ka gabiyay oo kaliya Ali Xuseen wuxuu ahaa SYShi xamar buu ka gabi jiray reer Burco ahaa Burco ka tagay isaguna asalkiisii halkan ka tagay dabeedna 1960kii markii la israacay ayaa waxa bilaabmay in markiiba dadkii hungo dareemeen iyo wixii in wax maran oo nidaamkii Talyaanigu 10 sanadood oo tababar siyaasadeed maamula dhaqaalaha ayuu siinayay maamulkii xamar dabeedna 1960kii bishii August Cabdirashiid Cali Sharmaarko ra'iisul wasaaraha baa halkan yimid dabeedna Booramo tagay halka kala beerka Cabdilaahi Suldaano faras xamar ku jooga tabashadii ugu horeysay oo ahayd geeraar uu ku soo dhaweynayay uradkii baarlamaankiyo waa Cabdoogeynu sugayna uu lahaa ayaa wuxuu ku yiri dabuub aan maqlaynay dareen baan ka qabnaayo dugsigii baarlamaankiyo dekadii xamar baa la berberadaad ku qaado hadda duuma dadkeedu duqaydii baarlamaanka ay danteena laba diiday labada kala daay oo yaan loo deemalaan waa August ajalada galkeeda maraan suugaantii timcada baariyo radio Hargeysa library-ga tagay 8 August 1960 ayaa ku qornaa waa Cabdi Ayuub oo wareysanayay Cabdi Iidaan iyo Cabdilaahi Suldaan maasooyinkii ay maalinta kala tiriyeen Ali Sugulle waa taanadiin soo sheegay waa Xuseen Faarax intee kala maqan ina xamar israacdan haday isla ogolaateen idinkoo itaal daran waa la arki doonaa eedaadka soo maray umul baylowda waa Qaasim mudaraadkan dhigan dib ugu soo laabtay sidoo deeysnahay miyaan doogi ka aba walidaa gudiimo soo jarin wiilashan diray dusha midabka Soomaalida duulka moodaayam san lagu madiirsaday qalbiga waa dirki karan maxaa shacaraba Cabdi Iidaan Faarax baa maxaa jaaf qalooc baa siyaasay wada tiriyeen oo suugaanta tabashadii ay 61kiiba marka la idinku daro gabayga Cabdilaahi Suldaane Buurduqeed siyaasay u bilaabantay siyaasay dadku u dareensanaayeen dabeedna waxay sugayeen goortii ay iska rogi lahayn heeriyadaas qiimaha doontaa ku kacdo waa la iska rogay waa Ilaahay mahadi dareen imikana waxayna faran gidigeen gaar ahaan dhalinyarada waxa weeye seen horena ugu mari lahayn waxaynu imika gacanta ku haynana u ilaashan lahayn inuu kori lahayn